waxaad rabtaa inaad iibsato guryaha loo yaqaano foreclosure ama pre-foreclosure waa guryahaasoo dadka guryaha lagala wareega inaad la wareegto si qiimo jaban ugu hesho so maanta waxaan ku fahansiinayaa processka inaad fahanso foreclosure processka si uu shaqeeyo waxaan ka hadli doonaa way to find them guryahan halkee ka soo heli kartaa iyaga iyo the best way to finance hadaa rabto inaad guryahan iibsato sida ugu macquulsan aad u iibsan karto guryahan si lacag yar aad oga bixiso waxaa kaloo ogaan doontaa how to evaluate probably guryahan saad u qiimeynayso si adiga waqti badan uu kaaga lumin aad u ogaato in gurigan guri oo investment fiican uu yahay in kale hadduu ahayn si aad waqtigaadan u badbaadiso walaal soo dhow magacayga waxaa la yidhahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment haddii aad rabto guriga inaad iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato insha allah anaga hadaa rabto inaan ku caawiyo waxaa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com haddii aad rabto real estate investment inaad barato ay kamid tahay buy and hold subject to wholesaling fix and flip insha allah igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com fadlan soo follow great video noocan kala soo aragto oo real estate ah alright number one first waa inaad fahantaa you have to understand the processka or the foreclosure processka inaad fahantay noqonaysaa ogow guryahan first ninka sellerka iskale ayaa wuxuu misgareeyey lacag payment u misgareeyey so hadda gurigii waa lagala wareegay ninka lenderka ayaa guriga inuu la wareega rabo so badanaa tan hadday dhacdo the first thing aad samayn karto waxay noqonaysaa you can literally waxaa wici kartaa negotiate directly waxaa oola heshiin kartaa ninka sellerka this is called subject to lahaa subject to-gan a whole another video waan soo sameeyey oo step by step guide ah haddaa rabto sidii subject to ugu samayn lahayd this video daawo insha allah kan kusoo laabo kadib so guryahaasi kadib waxaa dhici doontaa waxay aadi doonaan wax loo yaqaano auctionka ama meesha lagu xaraashi doono gurigan oo gurigaasi waxaa lagu iibinayaa as is siduu yahay oo ah asagoo waxba aan laga bedelin gurigan wax dayactir laguma sameyn wax lagu sameyn siduu lagaaga iibinayaa haddaad ku qaadanayso waad ku qaadanaysaa so haddii lacalla gurigaasi auctionka lagu xaraashay ee dhici waaso oo la iibsan waayo wax loo yaqaano waxaa dhacayo REO ama real estate own oo ninka bangiga inuu la wareegayo so ninka bangiga ayuu sameynayo inuu qof kale real estate agent u hayarta anigoo kale ah inuu suuq u geliyo gurigaasi la iibiyo taasoo badanaa wax loo yaqaano dhici doonto short sale-kan waxa weeyaan guriga waxay ku iibin doonaan qiimaha suuqa ka joogo qiimo ka hooseeyo for example guriga hadduu ka joogo 300 kun suuqa ka joogo waxaa laga yaabaa inay siiyaan 220 kun waxaa laga yaabaa right away haddaa gurigaas oo kale dealkaas aa hesho 80,000 ka samaynaysa right away oo equity ah baa ka samaynaysaa so deal fiican waaye so guryahan marka halkay ka soo heli kartaa adiga so number one the first one guryahan waxaa kasoo heli kartaa online listing waaye suuqa ku jiraan waa caadiga guryahan waxaa ka arki doontaa websiteka Zillow oo kale waliba especially haddaa aragta Zillow lacag ay ku qoranta like $1 $2 ama $20 ay ku qoranta oo aragto nambaradaasi waa usually guryahaasi waa auction waaye waxaa kaloo website loo yaqaanaa jira realty track website loo yaqaanaa jira oo aad ayadana kasoo heli kartaa websitekaadana waa kasoo heli kartaa there's another website loo yaqaanaa jira auction.com website kale jira asan la yiraahdo there's another website loo yaqaanaa foreclosure.com so websiteyada way fara badan yihiin laakiin websiteyada qaar lacag inay kugu charge gareyn bay isku dayayaan laakiin waxaan ku siinayaa isagoo free ah so wax loo yaqaanaa jira public records oo ah public nin walba u muuqanaya magacan u muuqanayaan public kule waxaan ka wadaa waa countyga degantahay doesn't matter countyga degantahay I don't know meesha iga daawanaysa ma garanayo hadda Hennepin County for Minnesota ku nooshahay waxaan ka soo qaadanaa example waxaan isticmaali doonaa Hennepin County hadda haddii aad degan tahay literally Google aad aadaysaa waxaa ku type garanaysaa Sheriff Sale Hennepin County baa ku type garanaysaa so then markii aad ku type garayso click waxaa search leedahay waxaa ku soo bixi doono foreclosure sales baa ku soo bixi doono foreclosure sales baa ku soo baxa kadib haddana waxaa ku soo bixi doona search for foreclosure data baa ku dhufanaysaa marka inta ku dhufato kadib waxa ku soo baxay listiga ku soo wada baxayo soo saashada ka tusaya hadda waxaad arki doontaa waxyaalaha waxa ku soo bixi doono gurigan sale record numberkiisa baa ku soo bixi doona waxa ku soo bixi doona addresska guriga ku soo bixi doona waxa ku soo bixi doona date of sale maalinta la sale garana gurigan type of sale noocu yahay baa ku soo bixi doona mortgage ninkii guriga iskala magaciisa ku soo bixi doono iyo waxa ku soo bixi doona wax loo yaqaan redemption expiration date oo ah gurigan redemption wax loo yaqaan waa waqtiga guriga qofkii uu la laaban karo haddii maanta guriga lagu leeyahay let's say waxaa lagu leeyahay lacag waxa lagu leeyahay like 60,000 kale lagu leeyahay ama 40,000 lagu leeyahay ama waxa lagu leeyahay 3,000 duu lacagta bixiyo dib oo la laaban karaa lacagtaas so that's the like wax loo yaqaan redemption period waqti loo qabto waay laakiin qofkaas wuxuu xaq u leeyahay gurigiisa inuu la wareego hadduu lacagta bixiyo so number 3 haddaan ka hadli doono la guryahan sidee aad ku iibsan kartaa number 1 first haddii aad dadka qaar cash ma wada haystaan hadda cash haysanin just literally you can go to any bank aadi kartaa warqad waxa ka soo qaadanaysaa pre-approval letter baa soo qaadanaysaa maadaama already ogtahay the date auction ku dhacayo waxyaalayaashan everything information ka haysato ogtahay warqadan sii qaadanaysaa dadka qaar inta arrintan ay sameeyeen ka hor bay warqada pre-approval letter soo qaataan ama dii kale waxa ku xisaabtami kartaa wax loo yaqaano hard money loan kuwa la yiraahdaa jira ayagana oo ku siinaya loankaada aan waxyaalo fara badan creditkaada hataa si fiican uma eegayaan way ku siinayaan kaa waa isticmaali kartaa
so labada midkood haddaa isticmaal haddii kale lacag cash property qiimihiisa waa ogaan doontaa haddii uu cash like 200,000 ka yahay cash ku iibsan kartaa. So that's how you finance. Like taasi the next thing ayaa muhiima inaad samaysaa, or like this is like you have to evaluate the property ina ogaataa. So ku evaluate garan karta property already hata lama xaraashin ina slide laga yaabo. Okay, ina haddan kaaga jawaab su'aasha. The first thing aad samaynaysa number one, you have the property address ku haysataa. Waxaa la samaynaysaa wax loo yaqaan skip tracing. This skip tracing waxaa soo ogaanaysaa ninkii iska lahaa gurigiisa, waxaan ka wadaa numberkiisa ayaa soo helaysaa. Numberkiisa website ka soo heli kartaa loo yaqaan True People Search aadi kartaa. waxaa gelinaysa addresska qofkii magaciisa ku soo baxayo, magaciisa already waa haysataa, so inuu smart garan fiirinaysa, then numberkiisa ku tusaya, number ku tuso, then number kala soo baxaysa qofka wacaysa. So waxaa wacaysaa gurigan, at least markaa wacaysana just you have to be nice, show some empathy to qofkani oo qof gurigiisa lagala wareegayo, naxariis ha laga dareemo, ha is adkaynin Soomaaliya ku ogaay. So then waxaa weydiinaysaa qofkan gurigan in renovation lagu sameeyay ama cilad dayactir lagu sameeyay, any updates ay weydiinaysaa, uu ku sheegay waxa dhacay, roof waqti la sameeyay fiirinaysa, waxyaalaha waxaa ku xisaabtamaysaa high ticket items-ka oo uu kamid yahay roofka, uu kamid yahay foundation inuu fiican yahay guriga, windows-ka fiirinaysaa, waxaa fiirinaysaa furnace-ka kale, water heater-ka, waxyaalahaas waa fiirinaysaa high ticket item-ka. So haddii uu dhawa laga hagaajiyo waxyaalahaasi, gurigaasi risk waa qaadan kartaa. Haa kaloo inaad eegto loo baahan yahay, muhiim ay tahay the fine printiga warqadda auction-ka inaad akhriso muhiim ay tahay, like maxay sameynayaan waxyaalayaasha ay ogol yihiin ee ogolaanayaan ayaga, like wax loo yaqaano terms and conditions ay leeyihiin. So waxyaalayaashaasi inay ogol yihiin fiiri waxyaalayaasha ogol yihiin. Mararka qaar waxay leeyihiin wax loo yaqaano brief period. This brief period waxay ku ogolaanaysaa waa at least 2 weeks lagu siinayaa inaad soo samayso due diligence oo like research ku samayso gurigan oo wax walba soo ogaato. So taas haddii rabto aad ogaato information-ka ka heshay, aad ka heshay ninka sellerka guriga laga iibsan lagala wareega ka heshay, risk daarto inaad qaadato, inspection ku samayn kartaa, qof contractor hire kartaa, mararka qaar ninka sellerka inuu ka yeelo laga yaabaa, usually mararka qaar just be nice, waxaa samaysaa always be nice, waxaa ka wadaa just get like $30 $40 oo waxa usoo qaadaa gift or like it doesn't matter, or curry bo Starbucks usoo qaad, si qofkan naxariis tos bilaadanka inaad dareemi karto qofkan duruuftu maraya iyo qaxarku maraya inaad dareemi karto. sababta guriga waa laga wareegay qofkan, qof contractor hire kartaa, haddaa hayrato wuxuu ku sheegay invoice roughly guriga intuu kacaysa. waxaa kaloo ku samayn kartaa title search. Title search-ka usually haddii full samaynaysa waa $400, laakiin kuwa qaar title ka mid daw tagto, kuwa qaar kuuga samaynaya jira $250 aad soo ogaan karto. waxaa kaloo kula talinaya inaad samayso wax loo yaqaan CMA, comparative market analysis, real estate agent wacato guryaha nooca la midka ah, maadaama addresska haysato uu ku sheegay gurigan haddii aad mustaqbalka waxaad ka rabto ma garanay aniga exactly, laakiin strategy na ogaato waa haddaad rabto inaad ku samayso fix and flip, haddaad rabto inaad ku samayso, haddaad rabto buy and hold, Airbnb wax ku samaynayso exactly, haddii aad rabto fix and flip you have to know ARV, after repair value inaad ogaato gurigan waa markii aad dib u sii iibinaysa dhow qiimaad ku sii gadala inaad sii ogaato waa. Like real estate agent-gaada ku ogolanaya inuu CMA-ga ku sameeyo hadda uu ku sheegay qiimahaasi. haddii kale waxaa samayn kartaa website-kayga tagi kartaa sahaninvestor.com, literally waxaa aada qaybta toolska wuxuu ku tusaya analysis isticmaal aniga aan property ku analyze garayo. It's unfortunate free maaha, like it's just $25 way to $50 way, literally waa noloshaada dhan isticmaal kartaa, you can use over and over and over waa isticmaali kartaa. Now you have done all your due diligence hadda waa samaysay, so the next step is like auction-ka tagaysaa, the location-ka tagaysaa, you will make an offer. And then waa la isku qabsan doonaa, qof wuxuu dhahay dala 300,000 305 307 whatever, just be competitive, like already you have done you did gurigan waa ogtay qiimaha suuqa ku jooga, let's say waxaa lagu raadinaya 300, like guriga wuxuu ku jooga 540 kale ku jooga suuqa, so already gurigan waxaa ka samaynaysaa like over 100,000 ka samaynaysaa waa ogtahay. So inaad research-kaada soo samaysa aad iyo aad muhiim u tahay, and then you have to give like competitive offer inaad siisay noqonaysaa. haddii lagu raadinayo 150 for example 250 ku iibsanaysaa, laakiin as long gurigan equity aad ka samaynaysa waay, haddii lacaga ka samaynin there's no point. So after offer then property-ga waa close garanaysaa, wallah congrats property waa iibsatay, laakiin waxaa muhiim ah you have to do your due diligence inaad samaysaa, aad iyo aad muhiim u tahay. guryahani it can be really risky, gurya haddaad riski xuna qaadanaysa haddii aad research-kaada aad soo samaynin, laakiin gurigan badanaa saan kuu sheegayo inay cilado qaban baa laga yaabaa. So stepkan waxaa kugu darayaa after aad guriga iibsatay kadib waxaa samayn lahayd. Number one, gurigan most likely haddii uu guri uu dayacan uu yahay wuxuu u baahan yahay some sort of repairs and renovation u baahan yahay inaad ku samayso. So lacagti waa inaad u budget garaysaa at least let's say 20-30,000 inaad ku budget garaysaa noqonaysaa. Intaan aan videogan ka baxin waxaa loo yaqaan redemption period-ka. Redemption period-ka ninkani guriga iska leh
haddii waqti buu haystaa waqtigaas waqtiga hadduu lacagta uu ku bixiyo guriga wuu la laaban karaa. Let's say waxaa loo qabtay 12 month, within 12 month guriga waa iibsatay, waxa laga yaabaa inaad farxsan tahay. So muhiim waaye gurigaasi intaa renovation iyo waxba ku sameynin redemption periodka inaad ogaato. So haddii kale lacagtaada ka khasaaraysa gurigaasi, nin kale guriga hagaajin doontaa, saasay qad kaga baxaysaa. Waxay noqonaysaa dhow inaad suudgareeysi isjijiditaan hoosh ku noqonaysaa. So redemption periodkan muhiim u yahay. haddii ninkani uu lagu leeyahay like 5,000 6,000 lagu leeyahay, usually ha ku sameyn renovation gurigaasi. haddii lacag lagu leeyahay an average 100,000 200,000 lagu leeyahay an average uu bixin waayo lacagta waxaas dhan waa ogaan doontaa, then risk waa qaadan kartaa markaas. laakiin as always do your due diligence samee. So haddii aad dhacdo taasi maxaa dhici doona haddii redemption periodka uu expire garoobo, ninka lacagta uu bixiyo guriga lagala wareego. So gurigan waa iibsatay, maxaa sameynayna islada laga yaaba lacagtii ayada full price aad bixisaa lagu soo celinaya, cheega lagu qoraya, countiga cheegaas ku soo diraya, gurigaada kugu soo dhacaysaa. So don't worry. insha Allah had see warta video noocan oo kale insha Allah na soo follow garee. halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment. haddii aad rabto guriga inaad iska sii gado ama guri cusub inaad iibsato, insha Allah anaga haddii rabto inaan ku caawiyo waxaa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com. haddii aad rabto real estate investment inaad barato ay kamid tahay buy and hold, subject to wholesaling, fix and flip, insha Allah igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com. fadlan na soo follow garee video noocan oo kale soo aragto oo real estate ah.